بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 669 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي لفظ: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. رواه النسائي والحديث صحيح. وفي رواية لابن حبان قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به ضيف. رواه ابن حبان والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 6dii bishii 8aad shacbaan sanadka 1443 isla markaana waafaqsan 9kii bishii 3aad sanadka 2022. waxaanu ku jiray mawduuceennii ballaadhnaa ee qiimaha badnaa ee ku saabsanaa fadlu sawmi wamaa yatacallaqu bihi, soonka iyo fadaaisha uu leeyahay iyo noocyaha faraha badan ee kaga soo hadalnay. waxaan shalay soo maray xadiidkaanu qaadan: asiyaamu xisnun xasiinun min annaar. soonku waa derbi maanic a saaxiibkiisa naarta ka manicnay. maanta waxaanu qaadanaynaa cinwaan kale oonu leenahay: assawmu ama asiyaamu min asawmu ama asiyaamu afdalu alacmaali kama akhbara bihi nabiyu calayhi salaatu wassalaam. soonku waa acmaasha kuwooda ugu fadli badan sida nabigu uu ka waramay. xadiidkan ikhwatii fi llaahi, alimaamu nasaa-i ayaa soo saaray kitaabkiisa sunanka, sidoo kale ibnu khuseyma, sidoo kale abu cabdillaahi alxaakim yaa qeybtan hore soo saaray. qeybta dambana waxaa soo saaray alimaam ibnu xibaan fi saxiixihi. idan xadiidku waa xadiid saxiixa wey. sheekh albani raxmatullaahi calayhi wuxuu ku saxiixinayaa ilaa 2 meelood fi sunan nasaa-i raqamka xadiidka 2222 iyo 2221. sidoo kale wuxuu ku saxiixinayaa saxiixu tarkiib watarhiib raqamka xadiidka 986. intaasba marka 2 meeloodba xadiidka uu ku saxiixinaya. xadiidka macnihiisa muxuu yahay? alimaamu nasaa-i raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa sunanka markuu xadiidka kusoo saaraya min xadiid abi umaama albahili ayaa wuxuu le: abu umaama albahili anahu sa'ala rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam, nabiga muxuu weydiiyey: ayulcamali afdalu? rasuul allow, acmaasha la sameeye khayriga yaa ugu fadli badan? qaala nabigu wuxuu yihi: calayka, bimacnaa ilzim, laazim weeyaan, bisawmi, sawm laazim. fa inahu sownku laa cidla lah, laa nadiira lahu fi ljri walfadli wey. laa cidla, laa nadiira lahu, wax nadiir oo mathiil oo u dhigma ma jirto maarata fi ljri walfadli, ajirka iyo fadliguu leh. riwaayad kale waxay imaam nasaa-i, abu umaama wuxuu yihi: qultu ya rasuul allahi, rasuul allow, waxaan ku idhi buu yihi: murnii amar biamrin, amari amar yanfacuni allaahu bihi, allow igu anfaco. yanfacuni allaahu bihi, allow igu amro i amar. qaala nabigu wuxuu ku yidhi: calayka bisiyaami fa inahu laa mithla lah. soon laazim, wax la mathiilo u dhigma soon ma jireen, wax u dhigma ma jirto. idan halkaas mara afdalulcamal baa la weydiiyey, wuxuu ku yidhi marka calayka bisawmi fa inahu laa cidla lah. mara wuxuu weydiiyey camal i anfaca i amar, wax i anfaca i amar. nabigu wuxuu ku yidhi soon laazim, wax lamida ma jirteen. riwaayadda ibnu xibaan waxay ayadna ahayd, uu leeyahay abu umaama albahili radi allahu canhu, waxaan ku idhi: yaa rasuul allahi dullunii itusi calaa camalin, camal itusi adkhulu bihi ljannata, jannada aan ku galo. adkhulu aan galo bihi bilcamali bisababihi aljannata, janna aan ku galo. qaala nabig wuxuu yihi: calayka bisawmi, soon laazim, ilzim laazim weeyaan, bisawmi, sawm laazim. fa inahu soonku laa mithla lah, wax u dhigma ma jirto, wax mathiila oo u dhigma ma jirto.
راويga ka warinayay Abu Umama al-Bahili oo maartay Rajaa ibn Haywa ahaa rahimahullahu ta'ala taabiciga ayaa ka warbixinaya wuxuu leeyahay wa kana Abu Umama al-Bahili saxaabiga jaliilka la yura min an la arkaynin fi bayti gurigiisa laguma arki jirin addukhanu qiiq naharan maalin wax liyaada waxa meena karsan jirin illa idha nazala bihim dhayfun martina utimaada mooyaan idan saxaabiga jaliilka Abu Umama al-Bahili nabiga alayhi salatu wassalam ila saddex jeer uu weydiiyay oo marra uu ku yiri rasuul Allah amalka yaa ugu fadli badan markaasuu nabigu yiri soon laazim marra wuxuu yiri waxa ay amartaa shay ya anfaca markaasuu nabigu hadana wuxuu ku yiri soon laazim marra wuxuu yiri amal aan janna ku galo iyo amar markaasuu nabigu wuxuu yiri alayka bisawm marra wuxuu ku yiri amal ay amar mutlaq ba amal markaasuu nabigu hadana wuxuu ku yiri alayka bisawm afar jeer oo kala duwan ayuu nabigu weydiiyay afartiiba alayka bisawm soonka faradka iyo soonka sunnah labaduba idan saxaabiga taabiciga ka warinay ardayga waa Haywat ibn Marta Rajaa ibn Haywa ee wuxuu leeyahay Abu Umama al-Bahili gurigiisa maalinimo qiiq laguma arki jir reerkiisa asaga zawjadiisa iyo khaadimkiisaba laguma arki jirin gurigooda wax la yiraahdo qiiq maalin yaani maalin cunto ismayna aqoon jir wuxuu ahaan jireen soon joogta illa idha nazala bihim dhayfun martina utimaada mooyaan martina u yimaada mooyaan gurigooda qiiq maalin laguma arki jir marka de Umama al-Bahili gurigiisa qiiq lagu arko macnaheedu martiba u timid ee dad ayagu sidoo wax u karsanaya ma ikhwati fillah halka waxaanu ka qaadanaynaa soonka fadliga uu leeyahay qiimaha iyo manzilada islaamka uu gaarsiiyay iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam sida uu saxaabadiisu ugu boorin jiray soonka ama soonka faradka ahaado ama ka sunnada ha ahaado hayr Abu Umama al-Bahili suu u fahmay عليك بالصوم مركي لقول لا فإنه لا عدل له لا نظير له في الأجر والفضل لا مثل له فرض كليكم كاننا مال نو وسومي تري مال نو وسومي وحلا يا بس سؤالنا كنتو تري هذه مركي نبي قال له أي العمل أفضل ويقول عليك بالصوم صومك مارت لازم وحصار رواية عبد الله بن مسعود يا حديث كلا والنبي قال له ويديو لي عملك يا أفضل بان إيمان بالله والنبي إلهي رمينتي meelo kale uu ku yiri bir waalidayn meelo kale uu ku yiri al-jihad intaasoo meeloodo kala duwan oo acmaal kala duwan uu mid kastaba afdalka uu ka soo qabtay iskama hor imanayaan hadiitaas culimadu leeyihiin ala hasabi saa'il weeyaan wa ahwaali saa'ilka wax weydiinaya iyo kolba xaaladihiisu nabigu ka arkayo u jawaabay ninbu nabigu iimaanka horta waxa ugu fadli badan waa al-iimaanu billahi wey wax la tartami karana male maxay yahay acmaasha kale oo dhan asay ka ratimaysa qofku iimaan haduu salahayn iyo Allah uu rumaynin soon iyo hebel iyo waxba uma tarayso marka taa iyada la isku haysto wixii ka soo hadhay iimaanka ala hasab kolba marka saa'ilka iyo xaalkiisa wey saa'il bu nabigu wuxuu arkaya iyo waqtiga la weydiinayo saa'il bu nabigu wuxuu arkaya inuu jihaadka ku fiican yahay marka afdalka amalka waxa binisbati ka weyn jihaad baa u fadli badan wey mid wuxuu arkaya soonka inuu ku fiican yahay soonka u fadli badan buu leeyahay marka raawi kasta ama saa'il kasta iyo ahwaashiisa iyo waqtiga maarta la weydiinayo ala hasab saa'il iyo ahwaashiisa kolba waqtiga la weydiinayo ayuu nabigu kaga jawaabayay ee ma ahayn macnaheedu amalka ma ala idlaaqa waxaana iimaanka ka ahayn inta kale kolba ala hasab waxa weeyaan raawiga iyo xaalkiisa weey idan ikhwati fillahi halka waxaanu ka soo qaadanay amalka ee soonku inuu kamid yahay min afdal al-a'mal a'maasha kuwooda ugu fadli badan inuu kamid yahay sida nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ka waramayba Abu Umama al-Bahili ya nabiga markuu weydiiyo ku ayul amali afdal qala nabigu wuxuu ku yiri alayka bisawm sawm laazim fa innahu la idla lahu la nadira lahu wa nadira u dhigma ma jirto fil ajri wa thawab way hadana su'aal kale weydiiyo wuxuu ku yiri murni bi amrin yanfa'uni Allah bihi ilahi ugu anfaco markaas hadana nabigu wuxuu ku yiri alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu soon laazim wax soon u dhigma ma jirte wax la mithiila ma jirte marka la hadan riwaayad ibn Hibban ayuu ku soo noqday hadana oo saddexaad markaas wuxuu ku yiri rasuul Allah dulluni ala amalin amali tusi adkhulu bihi aljannata jannada aan ku galo sababkiis markaas nabiga hadana wuxuu ku yiri alayka bisawmi fa innahu la mithla lahu saddexda jeer iyo mid afraad oo ka tagno Nisaa'i asna uu riwaayadiisa asna uu ku warinayo ilaahay murni bi amaluni amr idan انت mid taasna wuxuu ku yiri soon laazim buu ku yiri soon laazim ayuu ku yiri oo muxuu ahaa
murnii biamrin aakhudu canka amaraan ka qaata xaggaada. markaasuu nabig wuxuu ku yidhi calayka bisawmi fa inahu laa mithla lah. intaasoo jeer 4 jeer iyo ka badan buu ku soo celceliyey. mid kastaba wuxuu dhahayey calayka bisawm fa inahu laa mithla lah ama laa cidla lah. murnii bicamalin ayadna way soo aroortay. idan intaasoo dhan isku soo ururi ikhwati filaahi waxay ku tusinaysaa mansilada soomka iyo fadliga iyo qiimaha uu leeyahay. soonka noocaas ah ee saa u qiimo badan qiimaha ma yeelanayo haddaada ilaalinin shuruudihiisii iyo sida uu nabigu yidhaah loo soomo iyo qaabkuu nabiga calayhi salaatu wasalaam nooga waramay haddeenna u qaadanin oo cilmi u yeelanin soonka ma noqonayo soon qiimo leh. idan naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa ilahina subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayna biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana waafajiyo nugu nirtaaqa xaqa maarata raacitaankiisa soonkana nabad unagu gaarsiiyo kuwa ka faa'iidaystana ilaahay subxaanahu watacaala uu naga dhigo. idan ikhwati filaahi soonka noocaasa ee fadli badan ugu fadli badan acmaasha ama acmaasha kuwooda fadliga badana ee naarta kaa xijaabahaya ee jannada lagu galo ee intaasoo qiimaha leh wuxuu noqonayaa soonka nebi maxamed uu maarata soomi jiray iyo qaabku u yidhi ha loo soomo. qofkii sooman baa maarata helaya. ama haddii uu noqoto keli cuntadu maan iska ilaalin wixii lamidka wixii kaloo dhanna way i banaanaan xan iyo fulaan iyo fulaan. haddee soonkaa soon wuxuu noqonayaa dhaawaca oo naafa ayuu noqonayaa. ilahi subxaana watacaala xaqa hana waafajiyo. hal mar baan xadiidka lafdigiisa ku celinhayaa. alxadiidu 669 can abi umaamata albahiliyi radi allahu canhu qaal عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي لفظ وفي رواية مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية ابن حبان رواه النسائي والحديث صحيح. وفي رواية ابن حبان قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه ابن حبان والحديث صحيح. وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.